السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله سوماليات ملك استأجوكتان وأنيقو معلي شريف فيديوغان وحين كو إيجينا ومحي مادونكو وناكسن لغو برتو جامعة ذها محيستا أردقا إنو في رقارة أولا هادو كهور إنتو أوسن دالبان جامعة دا كهوري سبسكرايب لجنالكن لنا وذاك ولا الله كالي سي إيغون أغفا إيديستان كومنتنا سار أو صح وحي قلدان سنة كستا arday badan ayaa ka qalin jabisa jaamacadaha wadankan Ingiriiska in badan oo ardaydan kamid ah waxa ku adkaada inay ku helaan shaqo shahaadadooda ay ku soo tiir iyo tacbeeleen waxaaba uga sii daran waxa laga doonayaa inay dib u soo celiyaan deyntii ay qaateen marka ay bilaabayeen jaamacadda sababta ugu weyn ee ardaydan shaqo la'aanta ugu dhacdo waa maadada ay dalbadeen marka ay bilaabayeen jaamacadda kambaniga ugu weyn ee deynta siiyay ardayda ayaa qiimeeyay shahaadooyinka ugu wanaagsan ee u sahlay ardayda inay durba shaqo ku helaan shahaadadooda ayna qaataan mushaar wanaagsan oo kaafiya noloshooda ardayda barata medicine, dentistry, nursing, engineering, mathematics, computer science, pharmacology, pharmacy waxa u sahlanaada inay durba shaqo helaan marka ay dhameeyaan jaamacadda ayna qaataan mushaar ku filan iyaga iyo reerkoodaba halka ardayda dhigatay sociology, psychology, health and social care, biomedics, sports science, humanities, arts and design, agriculture, business ay ku adag tahay inay shaqo ku helaan shahaadadooda iska badaa inay soo celiyaan deyntii lagu lahaayay 10kii arday ee baratay maadooyinkan 8 kamid ah waxay awoodi waayaan noloshooda oo dhan inay dib u soo celiyaan lacagtii ay deensadeen markii ay baranayeen jaamacadda taasi waxay ku tusinaysaa in maadooyinka qaarkood aysan lahayn wax manaafacaad ah ardayda maadooyinkan digriga ku qaata waxay ugu dambeyn ka shaqeeyaan shaqooyin aan u baahneen wax shahaado jaamacadeeda oo waxaaba u wanaagsaneed sanado ka hor inay bilaabaan shaqo marka ay dugsiga sare dhameeyeen website-kan waa BBC-da oo soo saartay warbixin ku saabsan maadooyinka ugu sareeya uguna wanaagsan ee laga barto jaamacadaha iyo kuwooda ugu liita warbixintan waxaad ka arkaysaa maadooyinka ugu wanaagsan inay ka mid yihiin dhakhtarnimada dhakhtarka ilkaha dhaqaalaha xisaabta dhakhtarka xayawaanaadka injineernimada teknolojiyada architecture-ka computer science-ga luqadda sharciga nursing-ka iyo maadooyin science-ga inay yihiin maadooyinka ugu wanaagsan una fududeynaysa ardayda ka qalin jabisa jaamacadda inay helaan shaqo wanaagsan iyo mushaar ku filan sidoo kale halkan waxaad ka arki kartaa maadooyinka ugu liita ee laga barto jaamacadaha waxaa ka mid ah art and design oo ah maadada ugu liidata ee laga barto jaamacadda agriculture ama cilmiga beeraha iyaduna aad ay u liidataa psychology iyaduna aad ay u liidataa communications iyaduna aad ay u liidataa luqadda ingiriiska way liidataa iyaduna biomedical science iyaduna way liidataa sociology iyaduna way liidataa social care iyaduna way liidataa taariikhda iyo philosophy-gana way liitaan maadooyinkan waa maadooyinka ugu liita oo ardayda waxaaba uga fudud inay shaqo bilaabaan marka ay iskoolaadka dhameeyaan inta ay lacag deyn ah inta qaataan hodhowtii laga doonayo inay bixiyaan ayadoo interest ay saaran tahay waxaa uga fudud inay maadooyin kale ay raadsadaan ama ay isku dayaan inay raadsadaan apprenticeship wargeyska The Telegraph isaguna wuxuu soo saaray warbixin ku aadan maadooyinka ugu wanaagsan ee jaamacadda laga barto October 2019 maadooyinkan haddii aan hoos u daadegno waxaad arkaysaa halkan maadooyinka ugu wanaagsan The Telegraph uu soo saaray waxaa ka mid ah xisaabta dhaqaalaha computerka sharciyada waxay ka mid yihiin ayuu leeyahay maadooyinka ugu wanaagsan oo laga barto jaamacadda bal aan hoos u daadegno waa kan halkan wuxuu asagana sidoo kale kusoo gudbinayaa
in dhakhtarnimada iyo dentistinimadu, dhaqaalaha, pharmacology, toxicology iyo pharmacygaba, iyo engineering iyo xisaabta iyo dhakhtarka xayawaanaadka inay yihiin maadooyinka ugu wanaagsan ee laga barto jaamacadda. isku soo duuduubo waxaa la isku waafaqsan yahay maadooyinka ugu wanaagsan ee laga barto jaamacadda inay intaan un yihiin. sababtu waxay tahay ardayga markuu qalin jabiyo u dhameeyo jaamacadda wuxuu doonayaa shaqo inuu helo. maadooyinkan inaad shaqo ku hesho aad ayay u fududahay. sidoo kale maadooyinkan shaqada aad ka shaqeynayso waa shaqo lacag wanaagsan aad ka helayso oo ku filan noloshaada iyo tan reerkaagaba. sidoo kale maadooyinkan haddii aad barato meel kastoo adduunka aad ka tagto shaqo wanaagsan ayaad helaysaa. sidaa daraaddeed ayay maadooyinkan uga adag yihiin kuwan kale, oo xitaa marka ardayga uu doonayo maadooyinkan inuu dalbado way adag tahay in la helo. ugu dambeyn, daa'irtu ha isweydiiyaan saddexdan su-aalood ka hor inta aysan bilaabin jaamacadda. maadada aad dalbanayso durba shaqo ma ku helaysaa marka aad dhamayso jaamacadda? mushaarka aad ku shaqeynayso ma yahay mid ku filan noloshaada iyo tan reerkaagaba? shahaadada aad jaamacadda ka qaadanayso ma tahay mid kuu sahlaysa inaad uga shaqaysato meel kasta adduunka oo idil? jawaabaha saddexdan su-aalood haddii haa ay tahay, dalbo waa maado wanaagsanay. jawaabtu haa haddaysan ahayn, ha iska khasaarin waqtigaaga, qoortana dayn ha gashan, oo eeg meelo kale. insha allah wax ka wanaagsan ayaad helaysaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sheerdhe la wadaag walaalaha kale. waa mahadsantiin.